بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا لهانتينبا مeel kastoo aad daafaha dunida naga daawanaysaan kuna soo dhawaada wararkii dalka iyo caalamkoodii kaga imanaya magaalada London stuudiyaha labaad ee TV-ga qaranka Soomaaliyeed wararkana waxa soo jeedinaya anigoo Cabdilaahi Xuseen Maariya wararka aan idin haynana waxa ugu dooron madaxweynaha xukuumadda dawladda ku meel gaarka mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo waftigii ballaadhnaa ee uu hogaaminayay oo maanta si diiran loogu soo dhaweeyay gegida caalamiga ah ee Aadan Cadde International Airport ee magaalada Muqdisho iyo waliba wasaaradda gaadiidka iyo dekedaha xukuumadda ku meel gaarka ah oo dhagax dhigtay dhismo cusub oo loogu talagalay diiwaangelinta gaadiidka iyo wasaaradda xukuumadda ku meel gaarka ee caafimaadka oo sheegtay in uu soo badanayo cudurrada faafa oo ay ka mid yihiin cudurka loo yaqaan shuban biyoodka cudurradaas oo si ba'an ugu fidaya bay yiraahdeen wadanka Soomaaliya dhanka kalena wararka caalamka aan idin haynana waxa ka mid ah gobol ka mid ah gobolada Mareykanka ee la yiraahdo New Mexico oo ololaya in ka badan 150 qof oo ku qudwaayay diyaarad rakaab oo ku burburtay dusha magaalada Lagos ee caasimadda wadanka Nigeria